wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Sheekh xogayaha dawladda hoose xildhibaanada sharafta leh saraakiisha ciidamada kala duwan ee booliska saxaafadda martida kale dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh munaasabadan qiimaha badan ee dhaarinta xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo kalfadhigii u horeeyay oo inoo qabsoomi doona aad baan idinku mahadnaqaynaa ciidamada booliska oo runtii amniga inoo sugaya iyo saxaafadda iyo xildhibaanadu way mahadsan yihiin ayad quraan kariimka ah ku furanaynaa waxaan ku wareejin doonaa markaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Sheekh oo bilaabi doona dhaarintii marka dhaarintu ay dhacdana doorashadii iyo kalfadhigii baynu furan doonaa a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatun li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وحنكو ريجينا يا قدوميها محكمة قبل كمرودي شيخ سوى هوشي سوق حسين إبراهيم أسكر إسماعيل كتاب قاعدة صارسة سيقظة أنو يدهدو دارتا دستوريقا ayadu oranaysa qodobka boqoliyo 29 waxaad leedahay dhulka kitaabka gacanta saar waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinteeda islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo okay عبد الكريم حسن عبد قرس صيغة أولادنا waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan daacad u noqonayo diinteeda islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo way kulmiya سعيد بقى كبودي سعيد عبد السمد أحمد يا عبد الملك أي سعيد عبد السمد أحمد سعيد جولي سبيا أي كتابك قاعد صار صيغة نور أنا وده وحن إلهي وقول أرتي إلى أن نكون يدعى دين الإسلام كا ذلك يجي سومالان أنكم مقلو تدكيسة كنا معموليو سنان يا عدالة أنت عن حلك هايو كفرسو وين كل مية هذا جامع حدي مدية ثم واحد إلهي يقول أرتي إن الدعاء نقوليو دين الإسلام كا ذلك يجي سومالان dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo وياي سعيد جامع علمي علي علمي waxaan ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa intaan xilka hayana cadaalad iyo sinaan ku maamulayo okay way Abdurrahman Mahmoud ha waxaan ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo جمال عثمان عبد الله
وي شمال كتابك عن سار وحن إلهي يقول دارتي إن أن daacadu noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilkayo Ahmed Yunis Aadan waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan daacadu noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo Maxamed Abiib Cismaan Sikawi codkina hal maqlo dadkuna u daarsin jireen waadaane waxaan Ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo waaye Abdi Karim Ahmed Mooge waxaan Ilaahay ugu dhaaranayaa in aan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa intaan xilka hayana sinaan iyo cadaalad ku maamulayo Yaasiin Umar Abdi waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa sinaan iyo cadaalad aan ku maamulayo intaan xilka hayo Ismaaciil Muuse Sheekh Aadan waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa intaan kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo Faisal Abdurrahman Xirsi Ali waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo Abdi Maxamed Faarax waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo Mawlid Maxamed Giirhe waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo waaye Abdurrahman Abdullaahi Maxamed waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan daacad u noqonayo diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisa kuna maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo waxaan hore ma jira Allah idinku anfaco kitaabkana meel dhigta oo gaar haydina hado ku xusuusta inaad daarateen meel idin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دارتي وينو دماتي كتابك قرآنك إنه كل دارنا إلهي سبحانه وتعالى دمانتين هنقو أنفعه أنا قلت وكوي كل رقمه كتوه صناعة واحد نقول قلنا كالفردي كلها ديجانك يجوه الرئي اللي جود ورنا مايك مايك حجانك واحد إنه ده دين دون الشركة فبنت وجود أدوين للجلها وحنا مرينا يا نديك ويوا جنر ويوا ونيجا سادة اللي سي وي ما شاء الله جنر
waayahay waxaynu gudagelaynaa kalfadhigeennii ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo fududeeyo waxaynoo daadihin doonaa xubintii ugu da'da weyneed golaha ee la siiyey injineer wiiwa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin kusoo dhawow injineere. بسم الله الرحمن الرحيم. مركب رواد وذ السلامتين سلامة الإسلام كان يكون سلامة يا مدحضة يحل معنا سراكيش النبض إلى النساء صحافة كل جنبه بعد السلام وحينو بلا مساء شركي أما كالفرد دي كواد لو دورنا أي قدوميها قدومية كحجانك عصب يحل معنا كسر دحب الحياة سووا الرئيسين إنه سمعنا وحويان أنت إن هالكم بدنا حل معنا si ay u cadaato waxaan marka hore u codeynaa cid isku sharaxaysa gudoomiyaha degmada caasimadda Hargeysa yaa isku sharaxaya 17 xildhibaan cid kale isku sharaxaysa ma jirto hadda waxa loo cadeeyo inta gol gudoomiyaha waxa isku soo sharaxay Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan ويونانيمس 16 أقول لك درسوا اسمع هذا ويدنت هاي يونانيمس واحد نوجو حقيقة عن قدومي كحجانك قدومي حجانك يا اسكو شرحية يا اسكو شرحية يا اسكو شرحية واحد اسكو شرحية خضر أحمد نور خضر عد كلا يسكت شرح اسمه شتا حلوتها جعنت عدي تطبيق waxa halka ay loo soo xirantay in gudoomiyihii iyo gudoomiye-xigeenkii loo codeeyay oo unanimous loogu codeeyay uu gudoomiyuhuna yahay Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan gudoomiye ku-xigeenkuna yahay Khadar Axmed Nuur salkaas aan bismillahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh sida qiimaha badan doorashada urursan aad uga soo shaqeyseen gudoomiyaha golaha deegaanka ee cusub ee caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo gudoomiye ku-xigeenka Khadar waynu hambalyeynaa waanaynu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka ku asturo dhammaantiin xildhibaanada golaha deegaanka ee 17 ay halkan fadhiyana waxaanu ilaahay idinka baryeynaa kulli rag xulabaatihiin oo laga soo xulay gobolka Maroodijeex in hawsha culus ee amaanada ah ee leedin diibay ee leedin dhaariyay in ilaahay idinku asto anaguna waan idila shaqaynaynaa anagoo ah gobolkii Maroodijeex iyo wasaaradda arrimaha gudaha waan idila shaqaynaynaa horumarka caasimadda iyo wanaaga dad badan bay idin sugayaan bulsho badan bay idin sugaysaa dad badan oo dan yara bay idin sugayaan dad badan oo runtii gobolka Maroodijeex daafiisa ku kala nool bay idin sugayaan ilaahay waxaan idinka baryeynaa hawsha leedin dhaariyay in ilaahay idinku garab galo waxaan ku wareejinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo inoo soo xiri doona kalfadhi salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gudoomiyaha shirka inoo gudoominayay iyo gudoomiyaha gobolka oo sharciyan u lahaa inuu shirka furo gudoomiyaha maxkamadda gobolka oo dhaarinayay xildhibaanada gudoomiyaha cusub ee la doortay iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan xubnaha golaha deegaanka cusub assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad aan ugu mahadnaqaynaa miidiyaha bahda miidiyaha kasoo qaybgalka ay kasoo qayb gashay yeelay xilligii doorashada sidii ay miidiyuhu uga shaqeynayeen iyo aad bay u fiican tahay sidaa la socotaan waxaa ka soo dhex baxdeen doorashadii 31 May dalka ka hirgashay doorashadaasi waxay aad iyo aad inoogu dhaaftay ilaahayna inoogu ilhaamiyey inoogu garab galay inay doorashadaasi si nabadgelyo ah ay nagu dhaafto doorashadaasi waxay ahayd doorashadii ugu horeysay ee laba doorasho oo isa saaran oo markii ugu horeysay aynu ku codeyno oo golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ah
ayay ahayd oo inaan waayo arag u lahayn doorashooyinka kale waayo arag baynu lahayn dadkeenuna way ku wanaagsanayeen werwer fara badan baa laga qabay doorashadaasi sida ay natiijadeedu noqonayso sida nagu dhaafayso waa taariikhda doorashadii 7aad weeye Somaliland ay gasho 7aad doorasho waa doorashadii ugu horeysay ee dadkii goobjoogayaasha ahaa ee international observers ka ahaa tiradii ugu badnayd ee Somaliland timaado waana doorashadii ugu horeysay ee tiradii ugu badnayd ee dawladda ka socotaana ay timaado koob iyo 30 dawladood ayaa maxaan ku dhahdaa ka soo qayb galay oo ay ku jiraan 8 ambassador 8 safiir oo buuxa ayaa ka soo qayb galay inta kale safiir ku xigeen iyo diplomats kale ahaayeen inta kale 110 ay ahaayeen inta kale waxay ahaayeen dad dawladda ka socda dad saaxiibo Somaliland oo maxaan ku dhahdaa shirka yimi iyo dad observers oo had iyo jeer hay'adaha caalamiga ah waaweyn sida Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa midowga Yurub ay u dirsadaan inay goobjoog ka noqdaan doorashooyinka caalamka ka dhaca waxaan u maleynayaa 5 casho 6 casho horteed ayay soo saareen warbixintoodii hordhac ahayd dawladihii Yurub midowga Yurub iyo kuwa aan midowga Yurub ku jirinba dhowr iyo 10 dawladood baa saxaxay dawladda Ingiriiska loo xil saaray inay warka baahiso dawladaha Yurub oo dhamay way saxaxeen dawladda waxay ka soo saareen warbixin aad u ballaaran oo aad u dhiirigelin dadka Somaliland oo ah oo shicibka Somaliland dawladda Somaliland ciidamada amniga Somaliland commissionka doorashooyinka waxba ay ku wada amaanayaan inaan kolle ka war hayno gobolkan aynu ku dhaqanahay dawladaha ka midka ah ee geeskan Afrika ku wada jirno oo qaarkood ay dhawaanahan la filayay inay doorashadoodii noqdaan shuruudii lagu xidhay waxaan qaarkood lagu yiri dalka yar ee Somaliland ay radaan cidina aqoonsanayn doorashadii ka dhacday oo kala la idinka rabaa in ay idinkuna sameeyaan waxaan ugu kalifayay in inta background-kooda dib ugu noqdo doorashada dadkii ka soo baxay baa tii deer farwaayina ogaataan doorashadii ka soo baxdeen midda labaad Somaliland si kasta baa xisbiyaal u noqon waxay yiraahdaan qolyahan maaragtay siyaasadaha iyo inooga horeeyay maxaan ku raadayay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkooda iyo waxoodan sameeya South Africanka waxaan ognahay apartheid-ka wixii loo jiray baa ka dhacay ANC waxay bilaabatay 1912 dadkooda characterization markay sameeyaan tirinayaan noocyada ay yihiin waxay yiraahdaan cadaan madow iyo midabku waa waxaan cadaan ahayn madowna ahayn hindida iyo carabta iyo iska dhalka waxaan ay sameeyaan 300 sanadood horteedna uu soo socday dagaalka South Africa mustacmaradooduna 1884 Afrika way ka wada horeysay oo 15 googoyo bay maxaan ku dhahday yimaadeen dawladna dastuurkooda waxay ku bilaabeen kelmaddu ku bilaabanta waxa weeye in our diversity we are united si kastay noo kala duwanahay waynu midaysan ummad reer South Africa baynu nahay no matter inaad madow tahay no matter inaad cadaan tahay no matter inaad casaan tahay no matter inaad midab kala tahay doorashooyinkana dadka ilbixi waxay yiraahdaan marka ay dhamaato waynu ka midaysanahay arrintii doorashadii iminka waxa laga yeediyay maxaan ku dhahday magaciidii sida xisbiyada uga soo kala baxdeen saacadan imka fadhina leedin daariyay magaaladan Hargeysa la idinka doortay gobolkan Maroodijeex caasimadiisa aadkiin kulmiye iyo ucidiye wadan uma tiidina golaha deegaanka degmada Hargeysa u tiin golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa natiijo leedin ka sugaya waa wada ololeynaysan
kuraasi baa kala raadsanaysan anigu waxaan qabanayaa anigu cirkiyo dhulkaan isku waa dabeecadda siyaasadday ka mid tahay it's the nature of the politics laakiin aakhirka markay timaado way nin walba way kusoo adkaanaysaa imika ayaan dhow qoladaydan ciidamada soo martay waxay galaan military academies dabeedna waa la tababaraya maxaa lagu tababarayaa in ciidamo la dagaal geliyo markaa maalin walba dee taanga iyo dayaarad iyo markab la dhaqaajin maayo miisaskaa lagu shaqeeyaa maababaa lagu shaqeeyaa baalaha waa la qurxiyaa marka aad dhammaysaan baa twitterkiina wuxuu odhanaya listen guys it is easy on map but it is difficult on train maabka inta lagu jiro way fudud tahay laakiin marka bahalka dagaalka odaygii uu socdo sidan uma hawl yara laba labisna suudhadh lama sito taaya lama sito midabo badan halkan ma yaalin qumbiyo qacdaa jirta ilaahay ha idin asturo hawshu waxay idinku fududaanaysaa waa haddii aydan wada shaqaysaan marka golihiinuna wuxuu ku qiimaysnaanayaa sida aydan u wada shaqaysaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka la doortay waynu ducaynaynaa waxaynu leenahay allah idinku asturo xilka ilaahay ha idinku asturo idinkana waxaan leenahay de waa in lala shaqeeya hadda imika dee gacantaa wada taagteen degmooyinka kale gacanta sidan umay wada taagin consensus baa arrimihiina kusoo dhamayseen la iskumana qoomameeyo waxyaalahaynu dhaqanka u leenahay somaliland waxaa ka mid ah 200 khilaaf baynu leenahay 200 khilaaf baa ina soo maray laakiin 200 khilaaf waxaynu ku dhammaynay inaynu consensus wada samayno arrintaasaan idinka mahadnaqaynaa hadda wixii ka dambeeyay xeer baa ku shaqaynaysaan xeer number 23 xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda somaliland ayaa aasaaskiina uu noqonaya waxaa ku shaqaynaysaan xeerarka kale ee dastuurka qaranka ka mida iyo xeerarka kale ee qaranka u degsan ayaad ku shaqaynaysaan waxaan leenahay markaa Hargeysa oo caasimadii marka waxaan u baahanahay markaa inaynu caasimadina macno u sameeyno doorashadiina waxaan u baahanahay waxa ugu badanay imika sanadka iibinayna dawladda hadda imika qoraalay u wada qortay in alaaliyay inta hay'ad caalamiye ah jirta jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa jaamacadda carabta tan midowga afrika kuwan goboleedka waxa dhan qoraal baa loo qoray oo qoraalkaasina waxa weeye ummadda Soomaaliland jawaab bay idinka sugaysaa calashaan doorashadii dhacday doorashadiina waxaan u baahanay inaynu macno u sameeyno xil wareejintiina waxaan rajaynaynaa waqti baan noo soo qabanaynaa jaanis baan siinaynaa maamulkii hore maxaan ku dhahday degmada mayorkii hore iyo mayor ku-xigeenka jaanis baa siinaysaan ay ku diyaar garoobaan oo maxaan ku dhahday xil wareejintii ay ku diyaariyaan ayagana waxaan leenahay xil wareejintii maxaan ku dhahday diyaariya shaqaasayno ahaanaysaa in gaar saxaafadda warkeedina halkaasaynu ku dhammaynay goob joogayaasha kalena way ina fasaxayaan